Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear brothers and sisters. Welcome to our YouTube channel Osman Banjar for studying the English language. Kusoo dhawaada walaalayaal janaalkeena barashada luqadda English-ka ee Osman Banjar. Aniguna waa teacher Osman Abdulqaadir Banjar. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkeeni 53aad guud ahaan ee luqadda English-ka, gaar ahaan casharkeeni 16aad ee buugga First Things First. Alhamdulillah. maanta casharkeeni inta aan guda gelin waxaan rabaa inaan soo qaato qaar kamid ah ardaydii ka soo shaqeysay casharkii 14aad ee buugga First Things First-ga. waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad umaadsantihiin sida wacan oo aad iskugu daydeen inaad aga soo shaqeysaan. Okay, maanta waxaan qaadanaynaa casharkeeni 53aad guud ahaan ee English-ka, gaar ahaan casharkeeni 16aad ee buugga First Things First-ga ee new concept-ga. waxaan meesha inoogu qoran oo aan qaadanaynaa tusaale ahaan are you ayaa meesha inoogu qoran, dhibic ayay noo leedahay. That means waxa waaye inaad qofka dhigi kartid adigu ma waxaad tahay wadan heblaay miyaad ka soo jeedaa. Okay, tusaalaan are you Russian, adigu Russian miyaad tahay. ama inaad dhigi kartid are you English, adigu English miyaad tahay. English horaan u sheegno waa luqadda iyo shakhsiga, waa dhalashada iyo luqadda. qofka wadankiisuna waa England. Okay, are you English, adigu English miyaad tahay. or are you American miyaad tahay. or are you Dutch, adigu Dutch miyaata oo Hollandees miyaata u taagan tahay. afartaas sawir waa afarta sawir noogu horeeya casharkeeni 16aad. kadib waxaan gelaynaa marka are these, kuwaani ma yihiin your oo lagu baneeyay. waxaa dhihi kartaa qofka wixiisa weydiin kartaa are these your books, are these your shirts. dhihi kartaa kuwaani buwaagtaada miya. waxaaga marka are haddaad aragtid, are these haddaad aragtid waxa aad sheegayso waa inay noqotaa wax jamac ah, waa inay noqdaan. ma dhihi kartid are these your shirt, hal shirt ma sheegi karto, inaad jamac ka dhigtaa oo isku dartaa are these your shirts. Okay, kahor marka intaan usii guda galin waxaan rabaa inaan qaadano qaar kamid ah kalaradana waa sawiradooda. kalarada nooca kalarka uu yahay sawirkiisa ayaan idin soo dhigayaa. kalarka koowaad aan soo qaadanayna waxa weeyaan waa red waa gaduud. Okay, white waa cadaan, waa naqaana. gray waa midabka oo macnaha waa gray, midabkaas waxaan dhahnaa waa dameeri, ama sawirkiisaad fiiri kartaa ama kalarkaas si fiican u fiiri, waa gray. Okay, yellow waa jaalo, midabka jaalaha waa yellow. Okay, blue waa midabka buluuga ah. Okay, black waa madow. green waa cagaar, horaan usoo aragnay. orange waa midabka oranjada, liimada oranjadana waa la dhahaa. Okay, orange ama orange labadaas baa lagu dhawaaqaa. brown waa kafey, midabka kafeyga. brown waa kafey. Okay, intaas waa kalarada aan rabno inaan qaadano, way nagu cusub yihiin. marka casharkeena waxaa ku qoran are these your red books, kuwaani ma buwaagtaadii gaduudnaayba. ama waxaad dhihi kartaa are these your white shirts, kuwaani shaatiyaalkaaga cadaamiya. ama waxaad dhihi kartaa what color are your shirts, what color are your books, waa maxay kalarada shaatigaaga ama waa maxay kalarada buuggaaga. Okay, intaas waa isla fahmnay. red books waa buugaag gaduudan, white shirts waa shaatiyaal cad, gray coats waa jaakado oo gray ah ama midabka boorboorka ah ama midabka dameeriga leh. yellow tickets waa tikidyo jaalo ah. blue suits waa suudad buluug ah. black and gray hats waa koofiyado madow iyo gray ah. green passports waa baasaboor cagaar ah. black umbrellas waa dalado madow ah. Okay, dalado madow. white handbags waa boorsooyin oo cadaan ah. orange ties waa garabaatiyaal
orange ah midabka oranjada ah. Brown and white dogs eeyo oo cad iyo kafay ah. Brown and white dogs waa eeyo cad iyo kafay ah. Blue penis waa qalimaan buluug ah. Red cars waa gawaari gaduudan. Green dresses cambuur cagaar ah. Yellow blouses bajaamooyin jaalo ah. intaas waa isla fahmnay. maanta exercise-keena waa uu fudud yahay. waxaan rabnaa inaan aad u fahmno. in badan aan igu soo celi jira eeda waxaa laga hormarsiiyaa, anta waxaa laga hormarsiiyaa. waa articles grammar ahaan, laakiin hadda inaan fahmno aan isku dayno. xilli dhowna grammarkaan bilaabi doona insha Allah. Okay, exercise ama layli waaye. waxaa waaye maxaa la yiraahdaa, waxaa meesha inoo yaala 1 2 3 4 5 6 7 8 jumlado 8 9 9 jumladood meesha inoo yaala. laba jumladood aniga qaadanayo, inta kale intana adiga laga rabo inaad qaadatid. jumlooyinka marka waxaa lagu dhahaa put in gili oo an. labada meelaha banaan waxaa gelinaysaa ama waxaa gelinaysaa an midda ku haboon. Okay, waxaa noo yaalo it is waa lagu banay Swedish-ka ayaa lagu yiri. haddana waxaa lagu qoray she is waa lagu banay a hostess ayaa lagu dhahay. Okay, labadaas meel maxaa lagu buuxin karaa? waa marka aniga qaadanayo waxaan leeyahay it is a Swedish-ka ayaan gelinayaa. meesha kaleetana waxaan gelinayaa she's an ayaan gelinayaa a hostess. sawahan u geliyo waad ogtahay adiga. meelna an ayaan geliye, meelna waxaan geliye kuwa kale soo socdo sidaas oo kale la rabo inaad u samaysid. waxaa lagu leeyahay it is waa lagu banay English-ka. it is ayaa waa lagu banay Russian-ka. it is ayaa lagu yiri waa lagu banay Italian-ka. it is ayaa lagu yiri waa lagu banay French-ka. it is ayaa lagu yiri it is ayaa lagu yiri waa lagu banay American-ka. Robert is not ayaa lagu yiri waa lagu banay teacher ayaa lagu yiri. he ayaa lagu yiri haddana meeshan isagu he is ayaa lagu yiri waa lagu banay engineer ayaa lagu dhahay. marka meelahan banaan inaad soo buuxisid isku day. jumladoo dhammaystiran aad soo qorsid insha Allah. waxaan idin leeyahay anigoo ah teacher Osman Abdulqaadir Banjar. haddii aad rabtid conversationka inaad samaysid insha Allah maalinta sabtida fiidnimadeedii insha Allah, maalinta xilliga barqada sabtida message soo qoro magacaaga oo saddexan iyo inaad rabtid wada sheekaysiga inaad ka qayb qaadatid iyo casharada spelling-ka insha Allah. marka waxaan ku leeyahay anigoo ah teacher Osman Abdulqaadir Banjar mar kale. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.